bismillaahi raxmaani raxiim shirkeena jaraa'id kooban ugu horeyn waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo saxaafadda madaxa bannaan ee la hadasha guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka xumahay xariga Coldoon waxaana shacbiga ka codsanayaa inay muujiyaan shucuurta dareenkooda kana gilgishaan talaabadaasi aynu ka wada qayb qaadano olole ciwaankiisu inoo noqon doono xariga Coldoon xalaal ma aha free Coldoon xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha laamaha ammaanka waxaynu ka dalbanaynaa in si bilaa shuruuda xorriyadiisii mar kale loogu soo celiyo wariye Cabdimaalik Coldoon run ahaantii waxaa nasiib darro warka dhawaaqa ka soo yeedhay gudoomiyaha ururka saxaafadda Soomaaliland mas'uulka ka ah Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto isagoo warfideenada la hadlaya mar wax laga weydiiyay xariga Coldoon wuxuu xukuumadda ka dalbaday in wariyaal kale la soo xidho iska badaa inuu ka shaqeeyo fardaaminta ka xidhan ama uu ka hadle saaxiibka Xuuto wuxuu yiri hal xidho wariye kasta oo taga dadka xaasidka ku ah wanaaga Soomaaliland markuu sidaa u hadlayo hadda wuxuu jeedaa shacabka reer Muqdisho wuxuu ku celceliyay in xukuumadda Soomaaliland doorkeedii gabtay wahayd in la xidho wariyaasha reer Muqdisho u taga maruu si gaar ah u tilmaamayay wariyaal aan ka mid ahay saaxiibkay wuxuu yiri xukuumaddu waxay saaciday wariyaal madaxweyne Farmaajo soo wareystay oo Hargeysa yimi waxaana ka dhigaadeegtay in tallaabo laga qaado Xuuto waxaan leeyahay walaalow shacbiga Muqdisho xaasidku ma aha nabadgelyada xasiloonida nidaamka kala dambeynta Soomaaliland ka jira aqoontaada mihnadeed ee ku kooban inaad u kala dab qaado saddexda xisbi ee Soomaaliland hadba kii dhaameelka ku haya ayaa ku geysiyay inaad sidaa u hadasho laakiin shacabka reer Muqdisho waa dad kaaga leex jecel badan nabadgelyada Soomaaliland taala xamar waxa ku nool bulsho wehelo ah jacaylka dadkooda reer Soomaaliland shacab ku soo hirta wanaaga ka jira Hargeysa Burco Borom iyo Cergaababa haddii damiirkaagu ku siiyay dareenkaaguna garan waayay inaad ka murugooto dhibkii colaadaha reer Muqdisho rafiiqa la ahaa in ka badan rubco qarniga anaga garaadka iyagu wuxuu na siiyay inaanu la dabaaldegno lana wadaagno farxadda markii ugu horeysay ee rajo iyo iftiin nabadeed u soo bidhaantay maanta waanu la banaan baxaynaa berina waanu la joogaynaa oo waliba waanu u taginaa markasta adiga se kuguma eedaynayno sidaad noogu dhaliilayso weheshiga iyaga dadka Soomaaliyeed xusaska qowmiyadaha dalalka dariska ee Hargeysa kaga qayb galayso garaadkaaga iyo garashadaada ayaa ku kooban waxa maanta jooga oo kaliya xukuumadda Soomaaliland anaga naguma saacidin inaanu cid xamar joogto wareysano haddii adiga shakhsiyada tultiin aad mihnadaada ugu adeegto anagu waxaan wakiil kaga nahay shacabka oo kaliya waxaanu tixgelinaynaa oo saxaafadda Soomaaliland ixtiraamaysa hoggaanka Solja xubnaha wakiilka ka tahayse waxaan u aqoonsanahay rakaabkii ugu dareewalka xumaa wariyaal madax bannaan ayaanu nahay saxafiyiin Soomaaliyeed oo u waranta fariintoodana gaarsiiya ummadda Soomaaliyeed ayaanu nahay waanuna ahaan doonaa dareenkaanu qabno ma bedelayaan warqadaha xadhig iyo waaranka ah ee aad madeerka Hargeysa la meeraysanayso xukuumadda Soomaaliland waanu ku kalsoonahay dawladdu waa tiil dheer Xuutoy wayna garwaaqsan tahay ama og tahay inaad macaash ka raadinayso xariga wariyaasha aad misana wakiilkooda sheeganayso caawa waxaan shacabka u sheegayaa inaad shalay igu lahayd adeerka Ciraad Bakaylo weerartay laakiin qaranka adeeriya anigu shakhsiyaad iyo qolo kuma abtirsado xukuumadda iyo wariyaasheeda madaxa bannaan dab kama dhexshidi kartid nalagu kaalaaluushi maayo si aad u macaashto amba waan jecelahay saaxiib inaad hanti iyo maal yeelato laakiin waxaan kuu soo jeedin lahaa inaad dilaal siyaasadeed noqoto xilkana iska casisho aad saxaafadda maalinba mid doonayso inaad ku iibiso Coldoonna waa la soo daynayaa dalabo codsi ah baa noogu maqan dawladda haddii aad adigu islahayd dilaal ka hela masaylada adigu taagtay saaka markii la xidhay ka socon waa saxafiga iibkiisu waa qabad baan ku leeyahay micnaha dambi male Coldoon oo la soo daynayaa taa ku biyacab dhamaantiin waa mahadsantihiin cadaalad iyo madax bannaanida saxafiyiinta Soomaaliyeed inaad taageertaan baan idinka codsanaynaa shacabka geesi lagu yahay taageeradiina ayaa wariyaasha Soomaaliyeed marti idinka yihiin guud ahaanba bulshooy balanteenu waa Coldoon oo la soo daayo free Coldoon aynu ka wada qayb qaadano mar kale ololaheeni halku dhigiisu ahaa xariga Coldoon xalaal ma aha. Assalaamu calaykum.